وعنا وناكسنا قيارتين إنه بحرن إذا الكيم بعمل كستو جوكتان حلي كستي وقت كستي إذا انتهي مالني ما وناكسن حلي قاعد مقال كان دوغي واتهي waddanka Sweden shalay warbaahinta waxa qabsaday iyo waliba gaar ahaan social media oo dadkuba warbixinadu ay u raraan isla markaana ay geeyaan waxyaabaha ku cusub ee soo kordha amaba ka dhaca sida aan ognahay daafaha dunida. haddaba waddanka Sweden shalay waxa lagu waabariistay isla markaana xukun maxkamadeed uu ku dhacay wiilkan Soomaaliga ee 27 jirka ah la yiraahdo Cabdirashiid Aadan. haddaba Cabdirashiid Aadan wuxuu ahaa taksiile dabcan dadka badana soo haajiray ragga Soomaaliyeed qaar waxa ay shaqooyinka ay ka shaqeeyaan waxa kamid ah qaar ko dumarka xataa ay galaan sida tagaasida basaska iyo shaqooyin kale oo aad u fara badan. ninkani Cabdirashiid oo Soomaali ah taksi wada ka ahaa caasimadda Sweden ee Stockholm ayaa maxkamadii halkaasi shalay ku xukuntay. tani waa qiso yaab leh runtii. ninkani Soomaaliga ah shaqadiisii taksiga wadaha ahayd muddada isla markaan uu ka waday halkaasi ee caasimadda Sweden. tobanka dumara uu dhibaateeyay halkaasi waxay ahaayeen rakaabkiisa. laba kamid ahina sida idin sheegay waxa laga helay DNA-ga dheecaankiisii in ay dumarkaasi uu u sameeyay sutag amaba galmo. haddaba wuxuu isticmaalayay xilligaasi in maxaa la yiraahdaa uu taksiga gadaal intuu ka furto wuxuuna geynayay adreeska ee dalbadeen adreesaan ahayn. dumarkani ayuu badanaa waxay taksiga u wacan jireen xilliyada caweyska ee habeenkiya marka ay wacdaana waxa uu geysan jiray goobo gaar ah oo asiga markaasi u qorsheysnaa. wuxuuna ku isticmaali jiray dumarkaasi gabood falada waxyaabaha uu rabana ayuu ku sameyn jiray. haddaba meesha uu u socdaan meel ahayn ayuu geysan jiray ayay warbixintu leedahay. dadkan rakaabka ahi ayaa dambiyo iyo dacwad ka gudbiyay baaritaan socday ilaa sanadkii tagay waa 2021kii Agoosto ayaa hadda soo afjarmay. xukunka maxkamaddu waxay ku xukuntay muddo 4 sano iyo 9 bilood. kadibna waxaa la sheegay Master Cabdirashiid Aadan in waddanka Sweden gabi ahaanba laga masaafurin doono isla markaana lagu celin doono waddankiisii hooyo ee Soomaaliya. balse garsoorayaasha iyo waliba qaadiyaasha qaar kamid ahi waxay sheegeen in uu yahay muddada 5 sano ah waqti yar ayna fiicnaan lahayd in looga dhigo amaba lagu badiyo muddo gaaraysa 9 sano in ku dhow uu xukunkiisii ahaado. xukunkan uu yahay mid khafiif ah waa sida ay hadalka u dhigeen. wargeysyada iyo TV-yada sida Channel 4 ay wararka laga soo deynayay newska shalay ugu sareeya ayuu ka ahaa waddankaasi Sweden. haddaba arintani ayaa sumcadda dadka Soomaaliyeed iyo waliba dad islaam oo dhaqanka iyo diintaba sharciga arrimaha ninkan uu ku dhaqaaqay ee kufsiga iyo tacadiga uu geystay ayaa mid alla naga xarimay balse uu baneystay. sidoo kale waxyaabaha yaab kale ee TikTok-ga commentiyada dadku weedaarinayeen dadka Soomaaliyeed qaarkooda waxa ay leeyihiin taksiga xataa waxa surnaa tusbaxaasi oo cadeynaya inuu yahay agabka iyo alaabada lagu cibaadeysto wardiga iyo loo isticmaalo. balse qofkani xilliga uu wardinayay oo taksigiisii waxa uu isticmaalayna oo dhinaca kalena uu dumar ka ajnabi ah oo waxaan alla banaynin iyo dad aan muxrimkiis ahayn oo markaasi isticmaalayay qaab qaldan. haddaba sidoo kale dambiga lagu helay waxa kamid ah lagu soo gudbiyay ama lagu helay in dumarkaasi xilligaasi ka soo baxay sida kalaabiyada baararka iyo wixii la halmaala goobaha lagu caweeyo oo maankooda xataa dadkaasi qaar uu joogo sida aan dareemi karno aan joogin ayaa waxaa la sheegay in xataa dokumentiyo ay leeyihiin uu ka qaatay uu isticmaalay sida kaararka bangiyada. haddaba arintu waxay noqotay mid aad looga hadalhayay dhammaan waddanka Sweden gaar ahaan warbaahinta hadday ahaan lahayd social media hadalkaasi lagu jeexjeexay. sidaan ognahay waddanka Sweden sharciyadu aad ayay isu soo bedelayaan. dhinaca mucaaradka ah ayaa iyaguna
aad u doonaynayaa in muwaadiniinta u dhashay wadanka Sweden ee dadka soo galootiga ah tacadiyada iyo dhibaatada ay u geystaan maxaa la yiraahdaa markaasi aad sharciga loola tiigsado ciqaab adagna markaasi la dul dhigo. hadda sida ninkani Cabdirashiid la shaaciyay in markuu xukunkiisa dhameysto waa muddada 4 sano iyo 9 bilood kadib dib loogu celi doono halka uu asal ahaan ka yimid waa Soomaaliya. haddaba sumcadda Soomaalida ayaa qofkani ninkan Cabdirashiid la yiraahdo wuxuu dhaawac u geystay durba qofkani inuu Soomaali yahay. dabcan dad badan oo Soomaali ayaa tagaa sida ay basaska ka shaqeysta isla markaana dabcan dadku waa iska qaar dadku indhagaraadle qofka Soomaaliga markii la arko waxa durba ay soo xasuusanayaan Cabdirashiid oo Soomaaliya dhibkii geystay halkaasi oo iyagu qaar markay arkaan cabsi iyo baqdin gali kareyso inkastoo wadanka qof walba dhibka uu u geysto uu u gaar yahay. sidoo kale Soomaalidu waxay tiraahdaa badoo dhan hal malaay ayaa qurmiya taasi oo aan kala jeedno in qofkani Soomaaliga ahi dhibaatadan uu u geystay shacabka Soomaaliyeed iyo magaca iyo sumcadda iyo dhaqanka iyo diintuba ay tahay mid Soomaalida ay ku yeelan karto saameyn xoogan iyo mid dadban intaba. waxaan idin tusayaa warka Swedishka qaabka uu u qorayahay haddii aad taqaanaan luqadda Swedishka waa ka inta ugu badan ee ugu muhiimsanina halkaan ayaan idinkugu soo koobay. dabagalkii uu socday muddadaasi sanadka in ka badan kadib markii 10 dumar ahi ay kiisas dacwo ah ay ka gudbiyeen. waxaase sidoo kale yaab leh in uu dacwada lagu gudbiyay oo qayb ka mid ah gaashaanka u daruuray asigoo yiri inuu shaqadii isaga tagay inay dad kale tagsigu wada sheer gareen jireen. haddaba carabtu waxay tiraa ceebay tacaal ceeb looma dhinto waa taa ummadii waa ka imika Soomaalidii dhinac ka shabadaysan oo ninkaasi Soomaaliga ahi dhibaatadaasi iyo xadgudubkaasi iyo gabadh falgalka intaasi la u geystay. 2 dumar ah ayaa laga helay hadda dheecaankiisii inuu markaasi falgal la sameeyay. haddaba warbixintii gaarka ahayd ee Shukri Xasan Shukri Sharaf official ayaa akhyaarta lagu xiran intaas ku soo afmeerena 27 jirkani sawirkiisa idin muuqda ayaa dhibkaasi geystay. warbaahinta Sweden ayaana lagu soo daabacay. waxa fiican intaadan falin ka fiirsa ay Soomaalidu tiraahdaa in la isku badnaado wadan walba aan joognana dhaqankiisa iyo sharcigiisa iyo nidaamka u degsanna aan ma aragtay u hogaansanaana. haddii aanan u hogaansamin karin dhaqanka iyo sharciga wadamadan ka jira waxa hagaagsan inaad isaga dhaqaaqdo oo asal meesha aad ka timid aad isaga laabatid. waxaase yaab leh in dadka Soomaaliyeed ee commentiga soo qoraya qaarkood ay lahaayeen ayaa hadda haddii xukunka u dhamaado Soomaaliya yaa u maqan gabdhihii iyo caruurihii ayuu ka micnaha xadgudub u geysan karaa maadaama wadankaasi dhibaatooyinka ka dhacay tacadiyada dadka ku dhacana qaarkood aynan helin cadaalad iyo garsoor. cidi uma maqna ceelna uma qodna. anigoo Shukri Xasan ayaa idin la socodsiinayay. haddaad ka heshay la wadaag asxaabta waana ku mahadsantaa booqashada haddii ay tahay markii kuugu horeysay fadlan nagu sharaf subscribe-ta iyo share-tii commentiga. mahadsanid. dhaqankiinan doorsan